السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى كسود هذا وعلى السو هذا برد حنا ساعدنا كل أفرت الجلرين سبت كستبع ما أنتو بيشوا صدني كو أغسطس 2018 وركب بناكي جده هي نجسو جارمانتا مدحوينها دونالد ترامب يوم مدحوينها حندها بوتين روسكية مريكن كا لبدا سو ودن oo laga baqay inay isku dhacaan dagaal u dhaxmaro oo maalin kasta isku booteynaya oo dhaxan kuriyana ka xoog badan yana ka xoog badan Mr Putin warka maanta marka waxa way si xog dhaceen waxay maanta xalay toole xalay markay maraysa 12 habeen maxaan dhahaa diyaarad ka soo gaxan dhahaa Pennsylvania Airport oo ka soo baxday oo waxaan dhahaa baabuusay waddanka Ruushka spion oo basaasisi waxay basaasisi ruushka xandaha meelaha hubka weaponska meesha ay ku qarsadaan bay xalay basaasisi taasna warka satellite-ka waxa soo qabtay xandaha ruushka diyaaradii marka waa la arkay markii la arkay ba satellite-ku soo qabtay sawiraan baa laga qaaday markaas ruushkii wuxuu diray hub erka oo diray oo kuwa hubka erka aada diyaaradii khatar bay ku sugatay ka bacdi markaas wararkii waa soo baxay Donald Trump baa loo gudbiyay Donald Trump wuxuu yiri seeba ku dhici kartaa diyaaraddeeda anoo Mareykan oo United States of America seeba diyaaraddeeda lama karaa wuxuu yiri anna hadda joojin waxaan dhahaa Putin hadda abdarada joojin weydo waxaan soo dirayaa 350 askari markab diyaaradaha cirka ku dhulka ku gujiyaasa waxaan soo dirayaa hadda joojin weydo wuxuu yiri dagaal si dhaqso badan baxan dhahaa baan sida u dhaqso badan baan response baan sameeyaa response military SX baan soo diraa ruushkuna wuxuu yiri 300 ay sheegaysaa warsha 100 ka badan iyo wax ka badan baan soo dirayaa hadda joojin wada abdarayo doqon iyo faqad doqonka ruushka ma kaftamay wuxuu yiri Mr Putin wuxuu yiri anu soo meey ninkii waxa ka dhigay madaxweynaha maanta booska ay taaganta heer ay soo gaarsiiyay ruushka ma kaftaman abtiyo ruushka waxa waaye ragii xandaay CSI investigation meesha dhan Mareykanka laga maamulo ragii dhex galay oo computer dhex galay oo system galay oo islaantii Hillary Clinton iyo Obama iyo wixii dhan systemka saas u dhex khalday raga ma kaftama saaxiib ruushka waa rag khatar waaye ruushka no علين KGB CSB والله saaxiib guriga aad inta lagu bambo lagu soo tuuraa kula qarxaysaa marka laba wadan وقود بليهن هوبك ما بين instruction base كوفانيان ورك حندها هوبكاس وهوبك حندها هدي لصوت ردكنا بابين إلهي شركونا هايو مركز لبا ودن بآد محندا حالد دود لو بقى إن الدجال إنه دحمره مركز كيو أسكت لقى روس حندا شرمل كيو فرنسيسكي حندا دوس عدانو يا روسكنا حاجة وتاجين هي لا شقين حنا ساوث كوريا يو جابان حنا تشاينا لا شقين يعني مركا waxaa baqay inuu adduunkiis xanda dagaalkii adduunkaas inuu dhaca laga baqaya marka ilaahay noo saalo waxaan dhaca gaadan iyo hadii ay hays baabiyaan laakiinse waxa waaye inagu inaan duceysana maalin kasta waay markaas maanta hadana waxay dhahay inagu wararkii xanda Soomaaliya ka soo baxay wararka Soomaaliya madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo booqasho ku aaday Charlotte maxaan dhahay magaalada Hong Kong xagga wuxuu kula kulmay madaxweynaha lahaaya Shin Chong Pong Heng iyo wasiirada xigeenka si Bingalala oo galangalala si Chanka waa magac baas bay leeyihiin Chinese si loo akhriyo adagta laakiinse magac baas bay leeyihiin xagaas marka laga hadlay xaaladaha Soomaaliya horumarinta dhaqaalaha nabadgelyada peacekeeping si Soomaaliya hore loogu mad lahaa iyo xagga financialka arintaas uu Farmaajo ku soo guureystay isagoo waftiga oo la socdaan hogaaminaya xana khayr iyo wixii la socday ala kulli hal markaas anu waa aad baan ugu farxanay ma sha Allah ilaahay wadakay marka anu Soomaaliya am very happy about dawladan maanta haysata oo Farmaajo ku taagan yahay 4 sano hadda in soo dhaaftay alxamdulillah waa wax dhibaato iyo musuqmaasuq been arag wadanku waa nadiif waa la nadiifiyay shabaab meesha ka baxeen musuqmaasuq waa ka baxay meesha laaluushkii meesha waa ka baxay marka waxaan rajaynaa walaalayaal
Soomaaliland nahay inagu waxa waaye inaan isjeclan waaye waxaan aynu kala saarano maxaan dhahaa anu waxaan ahay Puntland iyo Hebeland iyo Kabaland waxaas intaas ka dhaaftaan Soomaaliya waa hal qorkayo anagu waa isjeclay walaalayaal kulligeen marka aynu isweeshano ya inta waxaan naga dhaaftaan Somalia is the best had the right moment tobanka sano waxaan rabaa inaan noqdo waxaan dhahaa best country in Somalia that's our Regina Farmajo I love you man يا خير the best أما يال أما ديت صاحبه Somali على قبلك Somali okay iyo maxaan dhahaa Somaliland maanta warka wuxuu ka soo baxay waxa la yiri maxaan dhahaa ninkii qala hilibka waraabaha arrimacadka lagu arko ama maxaan dhahaa suuqa ku gadaya 3 sano jeel baa lagu xukumayaa ono Somaliland waa dad jaarkeena laakiin si xoogaa maamulka systemka sax wadaan baxoogaa waxba ka qadan waxay baahan yihiin xoogaa inuu ma fahamtay marka waxaan dhihi lahaa no ilaahina waxaan dhahay iyaga anoo soo dhaweeyo ma fahamtay marka Somaliland 3 sano in la iska xirayo ama bataadi gad ama hilib gad ama la iska xirayo jeel la iska tuure maxaa raga sax wada yaqaan subhanallah ya qano nabash arbasha ka daaysa ya qano baasha Brunei saa ka dhaafino Brunei wuxuu socda xaq kale ee xagga mu socdo moqto warga iyo maanta sportiga maanta xagga aan ku bilaabnaa xanaha Premier League Chelsea maanta xil ciise Bournemouth laba hal bay ku dhufatay iyo maxaan dhahaa Brighton iyo Fulham laba ka kula baxeen xaggaasna West Ham United Wolves iyo waxay kula baxeen 0-0 iyo maxaan dhahaa Man City iyo Newcastle iyo xagga laba hal ku badiyay Man City wala qabanaya bariyaha moqto iyo maxaan dhahaa Liverpool iyaguna badiyeen maxaan dhahaa Leicester bay ka badiyeen laba hal bay ku dhufteen yaa alla ku badiyeen ninkii Mo Salah wala qaban lahayd Mr Mo Salah wala qaban lahayd bariyahan ya iyo marka maxaan dhilaa Man United iyo Birmingham tomorrow ciyaarayaan la socda insha Allah Man United waa teamka jecla always the best team ma fahanti Mourinho waxa la yiri waxa lagu siinayaa chance baa lagu siinayaa chance kaas inay ka faa'iisto waada bari hadda badin weedo waa lagu ruqseenayaa waa daqada ka baxaysa marka chance baa la siiyay waxa ay teamka inay kor soo qaadi waay adiga waxa ay xaalada ma fiican lagu yiri siyaas markay bari ciyaarayaan insha Allah iyo Arsenal ay loobina maxaan dhahaa kuwii kale xagga Juventus Serie A ga Juventus iyo Parma iyaguna maanta ay badiyeen waxaan dhahaa laba hal ku badiyeen waxay ku badiyeen laba hal gool waxa keenay ilaa waxaan dhahaa Manzuki iyo mid kale Afrikaan ama magaciisa iyo waxaan dhahaa Cristiano ilaa hadda wali hadda gool waa ku sar leeyahay Cristiano wuxuu iska bartay meel 5 iyo 6 gool iskaga guro baashoon dalaq iska leeyahay dalaq wixii waa socon way meesha Spain ma this is Italy baa la saaxib talyaaniga saxay waa adagtay saad gool soo dhilaysid rag ka soo laacibin baa meesha xanda ku soo khasaaray adiga xanda shalay soo baxay ma soconaysa marka maro madaxa qabsaday iyo maro dhulka soo dhacay iyo maro cirka fiiriyo oo ninkii waa yaabeen bahal gool ku soo salnay ninkii shalay lagu soo qodxan dhaha 150 milyan baaba waa gool ku sarlay talyaaniga waa yaabeen warkaas shalay uu ka soo baxay xan dhaha joonka Italy ee della Grande la Sporta waxa leeyahay Juventus waxay rabaan inay koob qaadaan laakiin ciyaartoyda soo gateen way ku khasaareen marka waxaan ilaa Cristiano saaxiibo iska laa meesha waddanka Spain meesha dhooqo meesha Real Madrid xalan ku haystay meesha waxaan la taniyaa ee farsa bal Italiano sida daraad ciyaarihii markaas saasay ku badiyeen maantaas ku dhamaatay waxaan dhilahaa ismaqal dambe sidaas iyo wayno sabtida dambe afarta markay saacada ay garaacayso la socdo waa Also warka ugu dambeeyay iyo sportiga Premier League Sfesiona la socdo hay loobina wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sidaas iyo ismaqal dambe fiidiyoona share gareey walaalayaal wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh